dowladda Soomaaliya ayaa diiday in midowga Afrika ay kala hadasho sheegashada dowladda Kenya ay ku doonayso badda Soomaaliya. Maxamed Axmed Tuuryare ayaa warkan inoo faahfaahinaya. dowladda Soomaaliya ayaa diiday casuumaad uga timid guddiga midowga Afrika oo ku saabsaneed inay uga warbixiso muranka badda ee kala dhaxeeya Kenya, taas oo beddelkeeda ay dowladda Soomaaliya muujisay inay ku kalsoon tahay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda oo hadda gacanta ku haysa kiiska iyo awoodda ay maxkamaddu u leedahay inay go'aan cadaalad ka gaarto kiiska u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya. maxkamadda ICJ ayaa dhageysiga dacwadda badda u fariisanaysa 9 ilaa 13 Sebtembar ee bisha soo socota, waxaana dhageysigaasi uu ka dhici doonaa qasriga maxkamadda ee ku yaala magaalada Hague dalka Netherlands. maalinta koowaad ee dhageysiga ayaa waxaa la tilmaamayaa in ay Soomaaliya maxkamadda ka horjeedin doonto doodeeda iyada oo 11 bisha Sebtembarna ay dowladda Kenya jawaabteeda geyn doonto. warqad ku taariikhaysan 21 Agoosto oo uu soo xiganayo wargeyska The Star ee dalka Kenya ka soo baxa ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxa ay ku sheegtay in ay tahay wax aan habboonayn in ay aqbasho casuumaad ku saabsan arrimaha badda iyada oo la sugayo dhageysiga maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda. wasaaraddu waxa ay sheegtay in arrintan u gudbisay maxkamadda ICJ si ay go'aan uga gaarto muranka badda, haddana aysan wax heshiis la gaari karin dalka Kenya. Kenya waxa ay turjuntay tallaabadan oo ay u turjuntay si qaldan iyo mid aan saaxiibtinimo ahayn ayaa lagu sheegay warqadda wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ay u dirtay guddiga midowga Afrika. Soomaaliya ayaa waxa ay geysay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda dacwad ay ku sheegayso in dowladda Kenya ay doonayso dhul ay Soomaaliya leedahay. hase ahaatee markii ugu horeysay dowladda Kenya ayaa ku dooday inaysan maxkamaduba awood u lahayn inay dacwadda dhageysato iyada oo dowladda Kenya doonaysay inay wada hadal arrinta ku xalinayaan, laakiin maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ayaa horey waxay go'aan ugu gaartay inay kiiska dhageysanayso, waxaana la soo gaaray xilligii kiiska la dhageysan lahaa. bisha soo socotay ee Sebtembar 9 ayay dowladda Soomaaliya qareenadeedu jeedin doonaan. waxa ay doodu tahay lama oga damaca rasmiga ah ee guddiga midowga Afrika uu doonayay marka uu casuumaadda Soomaaliya u soo diray, laakiin wargeyska aan warkan ka soo xiganayno ayaa sheegaya in waxa Soomaaliya la weydiistay ay ahayd warbixin oo kaliya, inkasta oo aan si rasmi ah lagu sheegin maqaalkan. haddii dowladda Kenya ay ku leedahay tallaabada ay guddiga midowga Afrika Soomaaliya ugu casuumeen inay uga warbixiso waxa ay Kenya isku hayaan. mahadsanid Maxamed.